بسم الله. magacaygu waa Maxamed Nuuri Axmed. waxaan kamid ahay xubnaha hawlwadeennada ee shirkadda la talinta horumarka ee Sahan. shirkaddan Sahan waxaa la aasaasay bilowgii 2020. waxaa hadda shaqadeedii horeysay ka bilaabi doontaa 2024 dowlad deegaanka Soomaalida. xafiiskeedu ugu weyn waxa uu ka furan yahay magaalada Jigjiga. waxaa kaloo ilaamo xafiisyo ay ku leedahay Diridhaba iyo caasimadda dalka ee Addis Ababa. adeegyada ay shirkaddu bixiso waxaa ka mid ah la talinta dhinaca waxbarashada, ganacsiga, maamulka iyo maareynta iyo maalgashiga. shirkaddu waxay si guud ay xoogga saari doontaa adeegyada aan kor ka soo sheegnay, taasoo ka caawin doonta ganacsatada iyo aqoonyahanka deegaanka ee dhalinyarada da'yarta sida ay u helaan fursado kala duwan maalgashadayaasha, iyadoo ka caawin doonta si ay u gaaraan hadafyadoodan, siina doonta adeeg tayo leh oo ku dhisan xirfad iyo aqoon iyo waayo-aragnimo dheeriya ay u leeyihiin shaqaalaha ama xubnaha ka shaqeynaya shirkaddan. waad mahadsantihiin.